Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal. Waayo waa bilo oo maanta idin wada barnaamij qiimo badan. Kolley adduunyadu waxa weeyaan oo iska xilli aynu joogayeen kala Ilaahay ba subxaana wa tacaala og. Maanta waxaan rabnaa inaan ka waranno dhaqanka xun ayaan rabnaa inaan ka waranno. Waynu yaabanahay sanadadan ugu dambeeya, tusaale ahaan haddaynu soo qaadno, waxay naga batay faafinta xumaanta, waxa inagu batay bilaa xishoodkii, waxa inagu batay xeerin la-aantii. wax allaali waxaynu xeerinaynaa ma jirto. waxaad arkaysaa qof dhan oo xumaan ka sheekeynaya amba qof dhan oo bulsho dhan caayaya oo intaasoo kun oo qof ay daawanayso. hadduu ugu yaraado kun daawanayso, dhowr boqol daawanayaan, haddaa dad buu caayaya. waxaad arkaysaa xumaantii bartay marayso, qolaad martiyeysaa amba way ku martiyayaan, waxbaad ka sheegaysaa. haddaad marti tahayna waxbaad ka sheegaysaa dadkii oo waad aflagaadeynaysaa. hadday waxa weeyaan marti kuu yihiinna waad aflagaadeynaysaa. bal meel kasta ila eega, nin baa yidhi niyo maanaa waalan mise cadan baa laga heesaya. waxyaalaha inagu soo batay inay sax yihiin iyo inay khalad yihiin idinku baad garan doontaan. wax laga xishoonayaa ma jirto, wax la qadarinayaa ma jirto. youtube-ka waad arkaysaan waxyaalaha ugu badan ee waxa weeyaan aanu ku faafino beenta, buhdaanta, ceebaha, qabaayilka, naxliga. intaa qofku muxuu isleeyahay lacag ku hel? tusaale ahaan lacag ku hel buu isleeyahay qofku. qaar baa sidii looga dacweynaya isku dacweynaya ku waayey. dad wanaagsanna way jiraan oo si fiican u isticmaala, oo waxa weeyaan wax fiican soo daaya, wax fiican sii daaya, wax fiican soo geliya, maasha allah. taas waa xaggii social media. haddaba mid kalena way jirtaa. dhaqan xumadan la yaabina waxa weeyaan qof kuu sheegaya waxa weeyaan positive oo fiican oo wanaagsan ma arkaysidba. xataa waxaad arkaysaa qofkii intuu kuu sheegay wax fiican ama wax fiican ka sheekeeyey, hadhow toolana waxa weeyaan wax kale ka sheekeynaya. xageynu u soconnaa? xageynu rabnaa inaynu aadno? haddaynu soomaalinahay xageynu u soconnaa? ma imikaynu ilbaxaynaa? ma imika dunideenu de waxay ilbaxday zamanaha ka hor baa waxaan imika la ysku haysto iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan iyo suuqan aynu ku jirno. dadka dee dunidu beri hore ka baxday, inagii baa kusoo hadhnay. dhaqankeenu soomaaliyey muslim baynu nahay, islaam baynu nahay. maxaa laynaga rabaa? mar kasta inaynu waxa weyan xataa diiniyan, nabigu caleyhi salaatu wasalaam yaa saxaabtiisuba nacam waxay u soo gudbin jireen waxa weeyaan waxa wanaagsan. hadday guuleystaan iyo hadday guuleysanba, saxaabta rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo rasuulkuba xagga fiican bay ka raaci jireen, wanaag. nacam qalbiga xataa waxyaala fiican bay gelin jireen. inaka markaa maxaa inagu soo badanaya? inaka waxa inagu soo badanaya waxyaalo wayn isnacno. xataa dadku inay isnacaan waxa weeyaan dhaqankii lumay. iminka labada qof ee xataa wada sheekaysanaya waktigii hore, haddaynu tusaale usoo qaadno, wiilkiiyo gabadha sheekaysanaya, inuu dhaqankii isbedelay baan kuu sheegayaay. waxa weeyaan habeenka jimcaha ayay isku iman jireenoo markaasay dhaqanka haddaa baleeg iyadna dhagax dhinacaanay ku fadhiisanaysa, wiilkuna dhagax dhinacaanu ku fadhiisanaya, dhinacaasa laga sheekaysanaya. xataa dhunkashada xaaraanahayd, dhunkashada ayaa xaaraanahayd. imikana laba qof oo waxa weeyaan aan isqabin baa laga yaabaa ee waxa weeyaan dhabbila ka dulkacaan dhaqanka hadda jira. markaasaa labadaa qof ee sheekaysanaya, wiilku wuxuu ku xisaabtamayaa xataa waktigaas
gabadhan wuxuu ka bixin lahaa amba uu ka dooni lahaa wuu shaqayn jiray, shaqaynaya wuu soo dooni jiray. xataa bal sama qabo, xataa waxaa dhaqan xumo loo arki jiray gabadha iyo wiilkaas in gabadho gurigooga joogta ay uur yeelato, hadda waa xalaashiisa. xumaan waxaa loo arki jiray ceeb in hadhow toolo gabadhii uu guriga weliba iyadu ay guriga wiilka ugu tagto oo ay soo eegto dhaqanka, oo ay dhar usoo dhaqdo ila waa ninkeygii, oo ay usoo kaawadeyso, oo ay ka soo noqoto, ay xataa uur iska ilaaliso ilaa inta la hoynayo. dhaqanku saas waxaan jira oo qurux badnaa. iminkana way ku faanaysaa uur baa leeyahay, way ku leedahay uur baa leeyahay iyadoon la hoyn oo waxa weeyaan meel la geen oo aroos loo sameeyo bay ku faanaysaa. dee commentain aragna iyagoo ceeb maaha, laakiin dhaqankeenu bartaasuu mari jiray. waa xalaal waan ognahay, laakiin waxaynu soo dhaafnay in waxa weeyaan daba marnay, aynu isleenahay waynu ilbaxnay. markaasay hooyadu ku farxi jirtay, markaasuu aabbuu ku farxi jiray. marka dhinac walba haddaynu ka sameynay inaynu yaraysano oo aynu dhaqankeeni iyo gobonimadeeni iyo sharafteeni maxaa la eegaya marka? maxaa ka dhacaysa markaa? dumarkiibaa la xumeeyey, raggiibaa dumarkii xumeeyey, labadiiba waa nacalbadii dhinacba. markaa muhiimadda anigu wataa waxa weeyaan, ma jecli dhaqan xumo way jirtaa. waxyaalahaynu maanta sameyno oo social mediahan iyo iimaan la iskala hadlaya iyo waxan iyo whatsappkan iyo waxyaalahay soo saareen, ma jecli inaan dul istaago, waayo hankayga waa ka dulqaadaya. waxaan jecelahay inaynu niyow haddaynu Soomaali nahay meel kasta haynu joogne inaynu dhaqankeena hagaajino, oo aynu dhaqankeena aynu ilaalino, oo dhaqankeena originalka aynu ku faano. nin walba wuxuu ku faanayaa waxa weeye dhaqankiisa. dadka qaar baa midba dhaqan buu wataa, wixiisu wataa, waxaas way ku faanayaan. inagu dhaqankeena ka faaninaa, dhaqamaada aynu lahayn baynu rabnaa inaynu ku faano. wax walba waynu koobiyeyninaa, saynu dee waxyaalo badan ba iskaga koobiyeyno. iminka ninba wax sameynaya, wax badan inaan kala degaa laga yaaba anigayaas. nin kale wax hindisaya, wixii unbaa laga yaabaa inaad ciwaanka ka bedesho hadda waa nin wuxuu ku tabcay ma naqaano inaku. marka waxyaalo fara badan ayaa iska jira. cabashadu waa badan tahay, hawshu waa badan tahay, waxyaalo badan baa waxa weeyaan dee ayaa waxa weeyaan jira, waxyaalo badan baa waxa weeyaan dee imanaya, waxyaalo badan baa socda. markaa Soomaaliyeed dee Soomaali cidna uma maqnaa, ceelna uma qodna. dhinaca dhaqan xumada inakaana iska dayn karna, inakaana waxa weeyaan wadi karna. inagu haddaynu Soomaali nahay dadka adduunka ugu fiican baan nahay. adduunyadaad arkayso dadka ugu fiican baan nahay. waayo dadka ajnabigaynu ugu fiican nahay. dad badan baynu dhaannaa, laakiin Soomaali haddaynu nahay adduunka inakaa isugu xun. qof ma arki karno, qofkan waynu dhibsanaynaa waxaanu keena. haddaan qofkaaga sheekeeyo muxuu yahay dhahaysa, anoo hadalkayga dhamaysan baa dhahaysaa qofkani muxuu yahay, maxay tahay? isagii baan ku caayaya, amba isagii baa qofkii caayaysa. waxa ina dhibaya waxa weeyaan inaynu ammaano keena wanaagsan amba lagu ammaano dhegeysato, taasaa ku dhibaysa. dad yow inaan la nool nahay inaad maanta inu amaasho ka Soomaaliya ugu hacoosan kaa dhegeysanayaan. iyadaas ku qoray. marka waxyaalo badan waa jira. marka haddaan qeylqeyliyo oo dhinacan ka warmo macna ma sameynayso. wax allaali waxay macna sameynayso ay macna ku fadhidaa ma jirto. laakiin waxa macna sameynaya oo walaal gobonimo sameynaya oo walaalayaal sharaf sameynaya inaynu soo ceshano dhaqankeeni wanaagsanaa. hooyooyinkeen si fiican bay noo tarbiyadeeyeen, waxyaalo badan baa inoogu tarbiyadeeyey, laakiin inaynu waxa weeyaan inaynu is ixtiraamno, inaynu xishoonno, in waxyaalo badan aynu hoos u celino, in waxa weeyaan bal Soomaalinimadeena iyo gobonimadeena iyo sharafteena aynu ilaashano, dhaqankeenan ilaalino. ilaa af baa inaga wada dhexeeye. af
iyo dhaqan iyo dhiig iyo dheecaan soomaaliyeed baa inaga wada dhexeeya, oo aynu iska dayno naxliga, xumaanta, aflagaadada iyo wadankan aynu wada sheegayno xaafad xaafad aynu u sheegayno. wadankiiba waxaynu ka dhignay meel waxa weeyaan wada xaafad jaar wada jaar, anigaa le anigaa le anigaa le anigaa le anigaa le anigaa le, ilaa dumarkii baa hadlaya, xaggan anagaa degno, xaggan kale anaa degno, xaggan anagaa degna, xaggan anagaa galna. wadankiiba waxaad ka dhigtay mabiliqa caadiya, ma garata. dalka waa la wada leeyay, dalka waa la wada leeyay, qof kastoo Soomaaliya leh, qabiil male. dadka fikirka khaldan aaminsan ee waxa weeyaan xataa aaminsan dalku waa inaga wada dhexeeya. inaku marti baynu ku nahay dalka, ka imanaya dhalanaya ayaa iska leh, kaasina uu ka tegaya si kuwii hore uga tegeen ay martida u haayeen. dalkan jiilba jiil buu u dhiibaya. marka adiga taariikh xumaya inay kaa tegin, iyana xumaani kaa tegin. qof noqo dhaqan wanaagsan, muwaadin haddaad tahay, afkaaga iyo adinkaagu lagaa nabad galo. laakiin muwaadin nagnagtaa hayoon, muwaadin tusinaya in isagu cunsuri yahay, cunsuri oo waxa weeyaan cid badaynayn, dad badaynayn, cidba qof walba saa xaganaya. maxay muwaadinku qof walba cunaya oo nagnagtaa haya. muwaadin waxaan aad sheeganayso laga yaabaa in adigu ka dayacan tahay. qaar baa laga yaabaa markay meel sheeganaya inay ka dayacan yihiin oo dadka ugu liitaan, amba ay baloor yar ku leeyihiinba markay wax sheeganayaan. wallaahi dadka qaar baan u naxaa oo aan arkaa meel taaki yar bay ku leeyihin baa laga yaaba. qaar baan xataa waxba ku lahaynba, qaar baan buush uga dhisnaynba. marka inaynu istawakino oo waxa weeyaan aynu ku meereysano dhaqdhaq iyo bagbag maaha. inaynu horumarkeena iyo danteena, gobonimadeena, sharafteena, wanaageena, axsaanadeena, qiimaheena, waxyaalo badan meel ka eegno. haddaynu waxyaalo badan meel ka eegi kari weyno, wax badan baynu inaga lumaya. xaqiiqatan wax badan baa inaga lumaya. waynu guuli, gobonimo, sharaf, wayna waxyaalo badan ku dadaalna. xaqiiqatan marka waxaynu u baahan nahay oon anigu rabaa ood idinku rabtaan in waxa weeyaan dhaqankeena hagaajisano, akhlaaqdeedana hagaajisano. waayo sumcaddeennu waxay ku xidhan tahay inu xataa iswada ammaano. in waxa weeyaan xataa waxaan arkay maalin dhexdaasa qaar baan meel la fadhiistay, dad ajnabiya la fadhiyay, iyagii baa iscaayay. kani sidan buu eegi, kani kale sidan buu eegi, kani sidan buu eegi. yaa ajnabigaa layahay rasuulota, kani sidan hawa gaale yaa tihiin siyaa Soomaali baasta buu ku weydiiyey. iskuda miduu baa jiray yaa bagarisada. qaar baa waxa weeyaan markay dadka la jabadhiyaan, inankii baaba isjarjaraynaba. haddaynu Soomaali nahay, dadka xataa wax kasta isku sameynay, haddana qushi waxaa leeyahay nina dadkiisu ma dhibo, nina dadkiisu ma dhibo. imiga nin aada af aqoon adaad meel fadhiisata hadduu kaa qayqaylqayliyo, xataa sirkaasay u qayqayliyo, waad dhibsanaysa. hadda waa ajnabi, waad dhibsanaysa. laakiin nin af Soomaaliya hadduu idinku lix ku fadhiya idiga dul qayqayliyo amba idiga hoos qayqayliyo, ma dhibsanaysaan. waayo waa Soomaali. waxaanu ku hadlayno waad dhegeysanaysaan, waad fahmaysaan. waxaanu ku hadlaya hadduu tawaadacayo, hadduu calacalayo, hadduu caytamayo, wixiiba adiga kugu dhaadhacaya, kadib waxaad dhibsanayso. marka nina dadkiisu ma dhibaan. haddaynu Soomaali nahay isma dhibayno. haddaynu Soomaali nahay mid keliya taane. haddaynu Soomaali nahay dad baynu nahay. haddaynu Soomaali nahay dhaqan baynu leenahay. marka aynu iska dayno xumaha aynu iska dayno, aynu hore u soconno, aynu tallaabsano. haddaad rabto adigu inaad noqoto qof fiican, dadka u muujiya inaad fiicanta. laakiin waa fiicanahay, habeenba idaacad baan saaraya, habeen BBC-dan u shaqo tegaya, habeenba Star TV, habeen cable-kan u shaqo tegaya, habeenba dhinacan baan ka soo hadlaya. waa qof dee bilaa go-aanaad. haddaad habeenba mawduuc saarto, waa adigaa habeenba dee idaacad ka hadlay, waa adigaa habeenba waxa weeyaan topic ka hadlay. markaa noqo qof hadaf leh, wuxuu aaminsan yahay aaminsan, wuxuu yahayna yahay. ummadana waxa weeyaan intii aad la socon kartana la socon, ciddii aad la socon karayna dee iskaga bax. marka horeba isku leebar ma tiidin, amba iyagaa waxa weeyaan aad isfahmeen, amba adigan lagu fahmeen. dadku waaba intaasba.
idiga dhaxaysato guudi laakiin waa kaas hadii cidna adhalilin cidna aflagaadeynin cidna waxba ka sheegin noqo qof han leh qof darajo leh qof gobonimo leh qof jecel dadkiisa iyo ummadiisa noqo adigu xumaanta iska daa adigu qalbi xumada iska daa adigu xanta iska daa ha dhibsan qofku waxa soo kordha ha dhayalsanin qof waxa weeyaan wax ku biday ka qabo adduunyo xataa xuma tarto laakiin talooyin si ha ka xumaan waxyaalo qof walaalkaaga soo kordha ha ka murugoon waa ka waxa weeyaan ha ka qiiroonin qof walaalkaaga waxaad caawisay waa dhow tolo waxyaalo xun kaaga yimaadeen don't worry waa qof Soomaali adiga taa uga soco noqo markaa waxa weeyaan qof isagu markasta naftiisa kalsooni ka qaba waa isku qanacsan haddaan noqoto qof markasta isku qanacsan oo kalsooni ka qaba waxba kaama xumaanaya alaali wax ka xumaanaya waxa tahay qof wixii waxa weeyaan hor arkayana amba daba arkaya amba si kastaba qof waxa tahay waxa weeyaan u dheelitir noqo qof aan degdegin noqo qof aan waxa weeyaan waxa kuu soo socdaan ka hor dhicin wax ku dhaafina aan daba cararin waxaad maanta haysana aad beri u dhigin intaas baa laga rabaa waxaad maanta hayso wax ku qabo beri inaad gaari lahayd waxa kuu soo socdana samir oo iska ku imanaya waxa ku soo dhaafayna de maxamed keeriyenba waa sii jeedaa bada hore u socdo inahaas baa laga rabaa haddaad rag tahay haddaad dumar tahay qalbigaaga nadiif ka dhig cidna ha wacdo cidna adigu ha wacdo ka ku wanaajiyana waa ku wanaaji ka ku xumeeyana marka horeba isku qalbi ma tiidin ilaahay laba qalbi wada kala siiyo isku daa xataa ma tiidin baa laga yaabaa isku dhiig xataa waxa weeyaan amba dareen amba waxa ma wada tiidin waa kala duwantii maxaa laga rabaa marka inaad mar kasta adigu noloshaada xasilaysaa laga rabo ma garatay marka mawduucu waxyaalo badan buu isugu jiraa wuu la gelaya meel kasta la galay maxaynu u baahannahay marka waxaynu u baahannahay oo aynu rabnaa oo aynu doonaynaa inaynu qosolku waxyaalo badan buu kuu faa'iideynaya inaad dhowr caddaysaa oo qosashaa aday kuu fiicanta haddaad murugeyto murug waxba kuma soo celinayso qosolka keliyahaaga u fiican yahay qof ka qosol badayay buu keliyihiisu ka nadiif badayay iyagaas keliyihiisu nadiifiya markaad qosasho sanbabadaada waa neefsanayaan markaad iscaburiso naqaskii oo dhan baad isku celinaysa hadaad tirahdaan dad ba lama hadla ka horan aday ku dhibaysa adiga qofka ay soo disho laakiin qofkan u qosol dee basta mid baa soo dilo aynu sameeyno de way yalkadaada aday istishan kaas basta istaji noloshaada kan qaado ninkii baan isku xumaanayo de way yalkadaada adiga isku xumaan naagtii baan isku xumaano de way yalkadaada kii shaqadan isku xumaano de way yalkadiisa shaqadii maanta ma tigino de way yalkadaada warqad baa soo dhacdo de way yalkadaada qayb wali soo qanaaxayo de way yalkadaada nacam waxyaalahaas waa wax kuu gaara inaad ka sheekayso ma wax adiga kuu gaara waxaad ka sheekayn kartaa oo markaad wax aqoon u lahayn oo meeshii aad ku cusub tahay waa dhihi kartaa ninbaa Soomaalidu sidii hore maaha waxaan garanayaa waqtiyadan soo galnay dadka waa la caawin jiray imika qof hadduu soo galo magaalo oo la isla caawiya oo dadka yar hoos u waalay baa la dhahay ambay waalantay maalin walba waraaqo istabasida hadda isagu wuxuu doonayaa qofkani waxbaa karay luqadiina aanu garanayn inaan waxba isagu wuxuu baa la caawiyo xaafadiina fadeexadeynaysaa waqti markaas Soomaaliyeed meel kasta haddaynu ka qurunno dhibkeega leedahay meel kasta haddaynu ka urno dhibkeega leedahay waa inaan xaalad dejinaa xaalka waa inaynu dejinaa waa inaynu habeen walba hidaacad caadi saarana gobonimadeena iyo sharafteena ku jirta xaqiiqatan gobonimadeena iyo sharafteena ku jirta inaynu gob noqono amba aynu gun u dhimano inaynu gob noqonaa la qaati inaynu gob noqono haddaynu gobonimo u dhimo weyno oonu gunnimo u dhimanana waa mushaakil marka barnaamijkaygu maanta intaasu daaran yahay aadna waa idiin salaamaya saaxiibkiin bilo hadda iska fadhiya gurigiisi
oo nasanaya beryahan maasha allah xagga iyo talyaaniga markasta waa idiin sheegaa Sicilia gaar ahaan magaalada Palermo dee aad baa idiin jecelahay anigu horaa idigu sheego waxaa yidhi horta Soomaalida waxay tahdaa nin isfaanshay waa ri isnuugtay markaa waxaa la dhihi jiray markaa waxay maamadaasi ku baxday dee dadkii hore balaayay ahaayeen moogta qofka natusu baa la dhihi jiray adeer waxaa tahay laakiin imika waa wada booto midho bay noqoneen marka anigu waxaan ahay shaksi wax kaste idiin soo gudbin kara marka hala saaro aadna waa idiin salaamaya dhammaantiin anaa idin jecel baan leeyahay saxaabtaygu xiran insha allah asalaamu calaykum